بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. أما بعد، maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 18 bisha 7 2011 jamciyadda Nahrayn ee khayriga waxay gargaar cunto siin ay gaarsiisay qaxootiga ku dhaqan lagu xareeyay lambar konton qaxootigaas oo maanta aan haysanin daryeel tan iyo markay ka dilaaceen awaaro dalkan Soomaaliya ma jiraan hay'ado rasmi ah ee dadkani deeq gaarsiiya jamciyadda Nahrayn waxay ka tirsan tahay dadka u gurmaday sida gaarka u siiya gargaarka yoomiyan hadda waxay u wadaan cunto ka samaysan rooti iyo maraq waxaana ku kacay qarash ahaan intaas la sameeyay lacagta $85. waxay u baahan tahay in laga caawiyo gacansiinta iyo gargaar u fidinta masaakiinta tawaalaysan kuwaasoo maanta yaala banaanka cidlada ah hadeer aad u jeedaan وضع اللي وين dhibaatada baahsan ee ka jirta dhulkan Soomaaliyeed ay u horeyso macluusha baan ee wadata cudurrada waxaa loo baahan yahay cid ka danqata gacanna ka geysata dadkani wax siisamadooda jamciyadda Nahrayn ee khayriga mar walba iyadu waxay u taagan tahay dadka inay tusiso muuqaalada dardaran waxay kaloo jeceshahay markastaba inay horseed u noqoto howlaha samafal waxayna walaalaheeda iyo hay'adka kale ka codsanaysaa in gacan laga siiyo lagu siiyo maxay ahayd gargaarka ay bixinayso kan gargaarkani oo ka samaysan maanta cuntadaasoo ah rooti iyo maraq waxaa ku baxay lacag dhan $85 inta quudan kartaana waa 1000 qofood
waxaad dhihi laheedeen ood ka dhihi laheedeen hadday noqoto lacagtaasi ay fara badato imase ayaa quudan karta maalin walba ummaddan waxay u baahan tahay cid garab siisa